بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه راجعون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waa Antar Sayid Xuseen waxaan barakaha xarunta baafo ee magaalada Muqdisho waxaan soo barnaamijkeena ahaa Excel data analysis waxaan taagana warqad ay ku qoran tahay L12 waa casharkii 12aad casharkan waxaan ka hadlaynaa function loo yaqaan average ifs hore waxaan soo aragnay average oo celceliskan ka xisaabinaynay sidoo kale waxaan soo aragnay average if waa markii hal condition aan haysan aan hal criteria marka haysteed wax ka badan hal criteria average if ma isticmaali kartid waa inaa heshaa midkii pluralka ahay ama jamac ahay wuxuu noqonayaa average ifs sidoo kale waxaan arkaynaa pivot table-ka qaabka loogu sameeyo nidaamkan average ifs-ka markii la isticmaalayo waxaysana isla table-kii bariyaan aan soo isticmaalaynay iyo casharada hore aan soo aragnay shaqalaha magacyadooda departmentka ka soo jeedaan degmooyinka ay degan yihiin iyo waliba mushaharaadka ay qaataan waxaan joog ahaan u soo diyaariyay departmentka jiif ahaan waxaan soo diyaariyay degmooyinka waxaan rabaa inaan sameyno average ifs functionkaas ayaan ka bilaabaynaa qaabka caadiga ah ee excelada hore markaa isticmaalaysid ayaan ka bilaabi doonaa equal ayaan taabanayaa waxaan soo qabanayaa functionka loo yaqaano average ifs hoos ayuu ugu jiraa falaarta hoose ayaan taabanayaa markii aan kor imaado average ifs oo aan rabo marka functionkaas inaan doorto tab ayaan taabanayaa tab wuxuu keenayaa functionkan inuu ku doorayaa bishana uu ku furayaa average ifs wuxuu ka kooban yahay markii laga tago average range oo ah columnka celceliska laga sameynayo wuxuu noqonayaa midka lacagta ku yaal inta kale laba ay isku raacayaan criteria range 1 criteria range 2 saas isku raacayaan ilaa 64 ayuu noqonayaa waxaan ka bilaabaynaa average range wuxuu noqonayaa salary-gina soo qabto hal mar ayaan click sameeyaa muuskeyga marka falaar hoos u jeedo oo noqdo F4 ina tabtan ku qabsanayo ilaa nidaamkii hore inaan isticmaalayo noqonaysa comma ayaan leeyahay criteria range 1 iyo criteria 1 way isla shaqeeyaan haddii aan ka bilaabayo degmooyinka waa ina criteria range 1ka degmooyinka aan geeya hal mar ayaan click sameeyaa F4 ayaan taabanaya si aan developers kaga xiro comma ayaan leeyahay criteria-du waxay noqonaysaa inaad degmada soo qaado departmentka hadda soo qaadid finance ayaa waxa laga raadinayaa column-kan district-iga mana laga helayo functionkana meeshaas wuxuu soo tuurayaa in uusan waxba haynin marka waxaan ka bilaabayaa degmada hodan kan ugu horeeya ayaan click siinayaa laba su'aal waan weydiiyaa formula hoose hadaan ku hubinaay in hoos socdo ma la rabaa maya numberku waa ina xiraa F4 ayaan taabanaya mar labaad ayaan taabanaya markii aan dhinaca midig formulada u jeedayo oo ku hubinayo kan inuu boodo shibis galo kadibna shangaani galo ma raba ha saa markii loo socdo xarfaha isbedelaay xarafka hortiisa $1 saan ma dhigay comma ayaan leeyahay criteria range 2 iyo criteria 2 way isla shaqeeyaan waxaan soo qabanayaa departmentka falaartida markii muusoo soo jeedo oo falaar hoos u jeedo ay noqoto hal mar ayaan click siinayaa F4 ayaan taabanayaa si aan range-gaas dhan u xiro comma ayaan leeyahay criteria 2 wuxuu noqonayaa departmentka ayaan ka bilaabayaa midka ugu horeeya finance asagana waa in laba su'aal weydiiyaa waa in labada jiho aan formulada u kopiyeenayo hoos iyo midig hoos marka u socono inuu departmentka isbedelo human resource kiimaado kadibna IT kadibna operation ma loo baahan yahay saas markii loo socdo numberada isbedelayo waa iska dhaafina markii aan u socono dhinaca midig oo aan u koobiyeenayno kan inuu soo boodo oo meesha formula hadda aan ku qorayo soo galo ma la raba maya markii loo soconaa inuu soo boodo inta soo galo kadibna inta soo galo lama rabo saan waxa isku bedelay xarfaha h-ta horteeda waa calaamad $sign inaan dhignaa F4 ayaan taabanaya mar labaad ayaan taabanaya ma saddexaad bisha ayaan xiranaya control enter ayaan leeyahay si aan formulada godka u geliyo meeshaan aan u istaajiyo waa qabanayaa blast markii noqoto hoos ayaan u jiidaya waa qabanayaa dhinacaas ayaan u jiidaya marka meeshaan bacdama daatadeeda ay kooban tahay ay yar tahay waxaa imaanaya qaladaad loo yaqaano dividend error wuxuu sameynayaa number ayuu wuxuu u qiiminayaa 0 tusaale ahaan hodan oo kale IT markii laga raadiyo ma jiro shaqaalo hodan degan oo IT u shaqeeya ma jiro wixii IT-ga waxay u shaqeeyaan waa shibis ay ka yimaadaan iyo shangaani laba shibis iyo hal shangaan ayuu noqonayaa marka wuxuu sameynayaa functionka bacdama uu soo waayo hodan IT 0 ayuu soo qaadanayaa wuxuu u qaybinayaa dhinaca kalena 0 ayuu noqonayaa meeshaas waxa soo baxayo undefined wax loo yaqaan amba waxaan la gaari karin calaamada yareed oo wareegsan ayuu noqonayaa laakiin excelka calaamadaas ma soo saar karo keyboardkaagana kuma jirto waxa uu soo sheegayaa in number u qaybinaysid 0 marka 0 number ayuu iska noqonayaa marka 0 u qaybisid ayuu soo tuurayaa xaaladdan oo kalena waa sidoo kale xaaladdan oo kalena waa sidaas waxaan rabnaa marka inaan xalino oo meeshaas aan qaladaadkan aan ka tuurno marka formulada isbedel yar ku sameynayna laba jeer ayaan gujinayaa equation gadaasheeda average-ka hortiisa ayaa imaanaya function waxaa jiro hooshaas qabto oo godka qaladaad ku soo dhaco xalli karo loo yaqaan if error tab ayaan taabanayaa qaybtan hore wuxuu noqonayaa value-ga oo ah formulada iyo qaabkii u shaqeynayso
waana qaybta fr kan ku dhaafeeno waxaa imaanayaa gadaal coma ayaan leeyahay haddii qalad oo dhaco maxaan u baahannahay in fr oo sameeyo waxaa rabnaa 0 waa dhigi kartaa sidoo kale waxbana godkaasi kusoo qormin waa dhigi kartaa wal waxaan leenahay 0 aan iska gelino bisha ayaan xiranaynaa control enter ayaan taabanayaa waa qabanaya hoos ayaan usii jiidaya waa sii daynaya waa qabanaya dhinacaan ayaan u jeedaya waa sii daynaya godadkii qaladka taa kasoo muuqanaya hadda waxa ay soo saarayaan 0 haddii aadan 0 rabin oo aad rabtid double kale oo kale ama godkii inoosan waxba kasoo muuqanin 0 ayaan tirtirayaa double kale ayaan raacsiinaya control enter ayaan leeyahay waa qabanaya hoos ayaan u jeedaya waa sii daynaya waa qabanaya dhinacaas ayaan u jeedaya waa sii daynaya marka sidaasna waa samayn kartaa nidaamkan godadka la xira waa nidaamkii hore bal aan usoo gudubnay nidaamka casriga marka hore waxaan sameynayaa functionka sort ayaan soo qabanaya kadibna unique ayaan leeyahay tab waxaa umaanaya department yaashii hal mar ayaan soo gujinayaa falaarta markay hoos u jeesato bisha ayaan xiranayaa mar kale ayaan xirayaa si aan functionka unique bishiisa aan xiro bishaan waa xiraysaa ilaa madow ay ka noqonayso haddii functiono badan ay isdhexdhex gelinaysid kalar kala duwan ayay yeelanaysaa kalarka ugu dambeeya madowga ayaa waxay tahay functionka ugu horeeyay ah hawsha ka bilowday inta ayaan leeyahay hore ayay kusoo daadinayaa haddana waxaa rabaa inaan degmooyinka dhinacan u daadiyo hore waa usoo aragnay marka hore waxaa u baahanayna function loo yaqaano transpose kadibna sort ayaan isticmaalaynaa kadibna unique ayaan soo gelinaynaa degmooyinka ayaan soo qabanayaa bisha ayaan xirayaa mar labaad ayaan xirayaa mar saddexaad ayaan xirayaa ilaa madow ay ka noqonaysaa adii waa iska xirxiranaysaa transpose wuxuu sameynayaa degmooyinka joogjoog u yaalo inuu jiif inoogu dhigo haddaadan transpose isticmaalin joogjoog ayuu soo daadanayaa cashar horena inaan kusoo aragnaa rajaynaya inter ayaan leeyahay wuxuu u dhiga jiif hadda waxaan bilaabaynaa marka inaan isticmaalno functionkii loo yaqaanay average ifs oo soo dooranaya average range wuxuu noqonayaa columnka celceliska laga sameynaa waana salaryga hal mar ayaan gujinaya hababa yaraatay ma u baahnay inaan xiro coma ayaan leeyahay criteria range 1 waxaan markaan ku hormarayaa departmentka waxaan soo qabanayaa departmentyaasha ayagana ma u baahnay inaan xiro coma ayaan leeyahay criteria range 1 waxaan soo qabanayaa intaas horey waxaan usoo gelinaynay hal xabo laakiin markaan waxaan rabnaa dhammaantood inaan wada gelino si uu usoo daadiyo coma ayaan leeyahay criteria range 2 wuxuu noqonayaa degmooyinka hal mar ayaan gujinayaa coma ayaan leeyahay criteria 2 wuxuu noqonayaa degmooyinkan oo dhan ayaan soo wada gelinayaa departmentka iyo districtiga mid ka aragtida ku hormari kartaa xulayso male bisha ayaan xirayaa kadibna inter ayaan taabanaya hore wuxuu ka samaynayaa format inuu ka soo daadiyo culays yar jiro culayskaasna wuxuu ka imaanayaa horena ku sheegay 0 ayuu 0 u qaybinayaa meel walbaba bacdama daatadan ay kooban tahay ay yar tahay marka wax walbaba inaan la helin ayay u badan tahay marka godka hore aan laba jeer gujinaya oo ku laabanaya waxaan isticmaalayaa functionkan loo yaqaanay fr intaas waxay iska noqonaysaa qaybta hore inta dambe waxaan leeyahay 0 soo geli wixii qalad oo soo tuurayo bisha ayaan xiranaya inta haddii aan dhaho horey asaga ayaa soo gelinaya ma u baahni inaad jijiidid nidaamkan asaa isdaadinayo inta goday loo baahan yahay jawaabta inay kasoo muuqatane asaga ayaa soo gelinayo kasoo muujinayo haddii aad pivot table isticmaalaysid meel kamid ayaa istaagaysaa inta wax ka dambeeya insert ayaa imaanaysaa kadibna waxaan usoo gudbayaa pivot table-ka laakiin waa inaad daatadaada meel kamid ah istaagtaa pivot table ayaan gujinayaa kadibna pivot table ayaan leeyahay wuxuu qiyaasanayaa tableka intuu la eg yahay wax yar dhinacana u soconaya dhinacana ayaan rabaa inaan dhigo warqadda meel kamid ayaan rabnaa inaan dhigna locationka waxaan leenahay meeshaan inoo dhig kadibna okay aan leeyahay inta wax ka dambeeya waa soo jiijiidaynaa waxaan soo qabanayaa districtiga waxaan kusoo jeedayaa rowga hore ayuu magacyada kasoo tuurayaa waxaan soo qabanayaa departmentiga waxaan ku tuurayaa columnka hore ayuu ka keenayaa kadibna waxaan soo qabanayaa salaryga waxaan kusoo tuurayaa valuega hore ayuu wuxuu kasoo qabanayaa numberada kan marka isku geen waayo waa inaan bedelnaa mid kamid ayaan kor istaageynaa right click ayaan leeyahay summarize value ayaan u wareejinaynaa average ayaan leenahay si uu celcelis ah u sameeyo daatadan aad ay u yar tahay average-ka markii laga reebo totalada inaad si fiican u fahamtid maahane inta kale waxaa laga yaabaa in isbedel badan uusan jirin waxaa imaanayaa design kadibna waxaan usoo gudbayaa report layout show in a tabular format ayaan leeyahay si districtiga magaciisa iyo departmentka aan u helo xogaa yar intaan waa isku dhadhaweynayaa harka ayaan saarayaa wax yar ayaan jeedayaa si ay iskugu dhadhawaadaan waxaan rabaa dollar mid kamid ayaan kor istaagayaa right click number format ayaan taabanayaa si aan uga dhigo currency kadibna okay ayaan leeyahay godadkan firaaqada ah haddii arabtiisa waa ku dhaafi kartaa haddaad jeceshaas 0 inuu imaado right click ayaan leenahay pivot table optionskaas ayaan tegaynaa for empty cells waxaan leenahay 0 ha ka soo muuqdo
pivot table-ka asaga error ma soo saarayo okay ayaan leeyahay godadka faaruqa wuxuu kusoo tuurayaa zeroyaal ayuu keenayaa labada qaab hadaa fiirisid waa isla sidii waa nidaamka haddaan sameynay oo pivot table-ka asagana uu sameynayo ما شاء الله تعالى انت سيكون كاكلنا مهشان ينكسي ودينا 10 صوت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته